asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal kale muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa taariikhda geeska afrika oo kooban. qeexidda gobolka geeska afrika. runta markii loo hadlo, geeska afrika waa bariga saddex geesoodka ah ee dhex yaal badweynta hindiya. wuxuu shabahaa sida gees, halka ay khariiradda afrikana ka shabahdo madax. waxay culimmada juqraafiga qabaan geeska afrika inuu yahay dhulka ay degaan dadka Soomaalida ee ku kala nool wadamada Jamhuuriyadda Soomaaliya, Jabuuti, qaybo ka mid ah Itoobiya iyo Kenya. dhulka Soomaaliya ee gumaystuhu qaybiyey, qaar ka mid ahna u gacan geliyey labada dal ee deriska la ah. Soomaaliya ayaa ah geeska afrika runta ah. waxaa gobolkani ku wareegsan saddex dhinac oo biyo ah, waxaana la yiraahdaa jasiirad u ekayda Soomaaliya. hase yeeshee, qeexidda geeska afrika waa la ballaariyey kadib markii la siyaasadeeyey oo lagu soo daray wadamada Jabuuti, Eritrea, Itoobiya, Kenya, Uganda, Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed. waa wadamada maanta ku midaysan urur goboleedka IGAD. waxaa diraasadeenan ku soo koobaynaa 5 dowladood: Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Eritrea. waxaa lagu qiyaasaa badka ama masaaxadda guud ee dalkaasi 2.5 milyan kiiloomitir iskuweer. tirada dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa 141,301,000. tirakoobkii 2010 halkii kiiloomitir iskuweer waxaa ku nool qiyaas ah 57 ruux. dadka Soomaalida waxay ka degan yihiin mandiqadaas dhul dhan 1.5 milyan kiiloomitir iskuweer, iyagoo ku kala baahsan Soomaaliya, Itoobiya, Jabuuti, Kenya. mudnaanta istiraatiijiyadeed ee gobolka. mudnaanta gobolka waxay ka imaanaysaa juqraafi ahaan halka uu dhaco u dhowaanshihiisa khaliijka carabta, ku kulansanaanta labada diin, iyo ahmiyadda dhaqaalaha gobolka oo sii siyaadaysa. shucuubta gobolka geeska afrika. geeska afrika wuxuu caan ku yahay joogitaanka qowmiyado ku kala duwan isir, dhaqan iyo af. waxaa ku nool qowmiyado aad u tiro badan. qaar baa ku abtirsada asalka reer Xaam, qaarna asalka reer Saam, iyo qaar ku abtirsada asalka jinsiyadaha reer Niil. jinsiga Xaamiga ah ayaa ugu badan, gaar ahaan reer Kuush. qowmiyadaha ugu caansan ee gobolka waxaa ka mid ah qowmiyadda Soomaalida, qowmiyadda Amxaarada oo loo yaqaan Gaala, qowmiyadda Canfarta oo loo yaqaan Danaakiil, iyo qowmiyadda Amxaarada. afafka ugu caansan ee looga hadlo gobolka geeska afrika. Soomaaliya. Soomaalidu waxay ku hadashaa af u gooni ah oo loo yaqaan afka Soomaaliga. wuxuu leeyahay afku lahjado ka faracma. dhammaan dadka Soomaaliyeed way isku fahmaan lahjadahooda. lahjadaha ugu muuqaalka dheer waa 2 oo kala ah Maay iyo Maxaatiri. Itoobiya. dalka Itoobiya waxaa looga hadlaa in ka badan 70 af iyo lahjado. 26 ka mid ah waxaa ku hadla dad gaaraya ilaa 100,000 oo qof. afafka ugu caansan ee Itoobiya looga hadlo waxaa ka mid ah Amxaariga, Oromiyada, Tigreeniyada, Soomaaliga, Guragi, Sidamo, Cafarta, Hadya iyo kuwa kale. Jabuuti. reer Jabuuti waxa ay ku hadlaan 3 af oo kala ah Soomaali, Cafar iyo Carabiga. hase yeeshee, maamulka iyo waxbarashadaba waxay adeegsadaan afka Faransiiska. waddanka Kenya. dalka Kenya waxaa looga hadlaa in ka badan 30 af
waxayna wada leeyihiin lahjado ka faracma. Afafka ugu caansan ee dalka Kenya looga hadlo waxaa ka mid ah Swahiliga, Kikuyu, Kamba, Kisii, Giriama, Maasai, Somali, Kalenjin. Eritrea. Reer Eritrea waxa ay ku hadlaan 9 af, waxaana ka mid ah Carabiga, Tigreenya, Tigray, Saho, Afar, Beja, Belen, Kunama iyo Nara. Halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa taariikhdeena koobneed oo aan diiradda ku saaraynay gobolka Geeska Afrika. Intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah, sida ay nabadgeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.